ويا مرحبا بك يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. meel kasta aad dunida joogtaan wax ka ogow faa'iidooyinka soonka uu leeyahay. رمضان كريم meel baad joogtaan asxaabta ku xiran page-ka iyo channel-ka. aan ka bilaabnay faa'iidooyinka uu caafimaadku u leeyahay bisha barakeysan ee Ramadaan. Aadanka markuu u gaajoodo jirkiisu wuxuu bilaabaa inuu cuno carbohydrates-ka iyo dufanka ku kaydsan unugyada jirka, taas oo keenaysa inuu jirka iska nadiifiyo iskana saaro unugyada keena kansarka, doqonnimada, sokorta, cadaadiska dhiigga iyo cudurrada ku dhaca wadnaha, iyo in jirka laga saaro kolestaroolka iyo cusbooyinka aan looga baahnayn jirka. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو ramadaanka waxaa la iskaga dhimaa dembiga iyo xumaanta u niyeyso inaad alle keliya u soomayso, alle keliya u cibaadaysanayso. ka fogow wax kasta oo ramadaankaaga burin kara. hagaaji qalbigaaga, wuxuu qalbigaagu hagaajin doonaa maskaxdaada, waxay maskaxdaaduna hagaajin doontaa carabkaaga, wuxuu carabkaaguna hagaajin doonaa noloshaada, waxay noloshaaduna hagaajin doontaa aakhiradaada. u caabud alle sidii inaad arkayso, ka cabso alle meel kasta aad joogto, u tuko khushuuc leh, u hadal si dabacsan, u soco si degan, u cun si dheelitiran, seexa in kugu filan, u labiso si wanaagsan, u dhaqan si akhlaaqsan, u shaqee si adag. waxaad helaysaa hab nololeed hagaagsan. dunidan aan ku noolnahay ma aha goob nasasho, waa goob imtixaan. waa meel lagu kala saaro kuwa si dhab ah u nool, dhib kastana ku sabra, iyo kuwa si u nool dhalanteed iyo dhaldheel ah. ha kulamo waqtigaaga baashaal iyo madadaalo, ka digtoonoo la joogo saaxiibada xun, la soco dadka wanaagsan oo aad wax ka kororsan karto, u shaqee daarta dambe ee lagu waa. ramadaanka waxaa la xiraa shaydaanka, waxaa la furaa albaabada jannada. haddii qof muslim ah isbedeli waayo, cibaadada alla badin waayo, oo sii wada inuu xumaan sameeyo, waxaa qofkaas haysta ma aha shaydaan ee waa naftiisa uu ka adkaan waayey, shaydaanna ku noqotay. fadlan alla ka cabsigii iyo digrigii ilaahay badi, masaakiinta caawi, cibaadada ilaahay ku dadaal. kuma soo marayso bishan oo kale ilaa sanadka dambe. ka faa'iidayso waqtigaaga.